kulanti wacan saaxiibayaal halkan waa dhanka wararka ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay xaaladda guud ee dalka. Qodobada warkayaga aad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqonaya lafta gareen oo xarig ugu hanjabay gudoomiye Aadan Madoobe haddii uu tago Baydhabo, xiisada Koonfur Galbeed iyo dowladda dhexe oo meel xun gaartay, iyo Xasan Sheekh oo ka naxsan awoodda ciidan ee madaxweyne lafta gareen soo bandhigay. qodobadaas iyo kuwa kale ayaan saaxiibayaal warkan ku eegaynaa, balse marka hore u diyaar garooba hordhaca qodobada warka aad daawateen oo dhammaystiran. Al-Ihsaan Online Qur'aan waxa waalidiinta Soomaaliyeed ee ku nool gudaha dalka iyo dibadda ku wargelinaya inuu idin diyaariyay qayb online wax loogu barayo carruurta Soomaaliyeed iyo dadka waaweyn. Dugsiga waxaa kugu diyaara macallimiin isugu jira rag iyo dumar kuwaasoo dhammaantood u diyaarsan waxbarista ubadka Soomaaliyeed meel kastoo ay caalamka joogaan. Al-Ihsaan Online Qur'aan waxay ubadka barayaan insha Allah barashada xifdinta iyo tafsiirka Qur'aanka Kariimka, barashada higaada Carabiga muddo kooban, barashada ducooyinka iyo sirada Rasuulka sallallahu alayhi wasallam, barbaarinta iyo tarbiyinta ubadka yar. Al-Ihsaan Online Qur'aan waxaa kale ardayda baraysa qoraalka iyo akhriska afkeena hooyo ee Soomaaliga. Haddaba wixii sidaar kala xiriir lambarka shaashada kaaga muuqda. Aynu ku bilownay lafta gareen ayaa xarig ugu hanjabay gudoomiye Aadan Madoobe haddii uu tago magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka ah ee Koonfur Galbeed. Madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdi Lafta Gareen ayaa si carar uga falceliyay hadal dhawaan ka soo yeeray gudoomiyaha golaha shacabka Aadan Madoobe oo la xiriirta inuu kulan u qaban qaabinayo siyaasiyiinta Koonfur Galbeed iyo madaxweynaha maamulkaasi si loo xalliyo khilaafka ka taagan Koonfur Galbeed oo hadda u muuqday inuu hoos u dhacay, balse Aadan Madoobe uu kor u soo kicinayo khilaafkaasi. Lafta gareen ayaa sheegay in hadalka Aadan Madoobe uu yahay mid abuuraya khilaaf hor leh in Koonfur Galbeed la geliyo go'doon siyaasadeed, taas oo uu sheegay inaysan ahayn wax u cuntama dadka deegaanka oo xilligan wajahaya dhibaatooyin kala duwan oo xag dhaqaale iyo mid bini'aadanimo isugu jirta. Madaxweyne Lafta Gareen ayaa sheegay in uusan ogolaan doonin in faragelin lagu sameeyo maamulkiisa oo dhanka siyaasiyiinta dowladda dhexe ka imaanaysa, wuxuuna hanjabaad culus hawada u soo mariyay gudoomiyaha golaha shacabka Aadan Madoobe. Lafta Gareen ayaa yiri cid walba oo qallaasa ku wada maamulka xabsi ay mutaysanaysaa, wuxuuna hadalkiisa u muuqdaa inuu xarig ugu hanjabayo afhayeenka golaha shacabka ee baarlamaanka Sheekh Aadan Madoobe oo isagu qodqoday dagaal siyaasadeed oo aan jirin oo hadda ka hulcinayo deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya. Xiisada Koonfur Galbeed ayaa hadda meel culus gaaraysa, waxayna u muuqataa in Lafta Gareen lagu furay daldaloolo siyaasadeed oo kursigiisa saameyn weyn ku yeelan karta. Madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya Lafta Gareen ayaa xarig ugu hanjabay dhammaan siyaasiyiinta mucaaradka ah maamulkiisa haddii ay yimaadaan Baydhabo. Xitaa wuxuu sheegay haddii uu yahay mas'uul xil sare haya oo looga shakiyo in qallaaso wadan xabsiga uu dhigi doono. Tani oo ku muujinaysa in hanjabaadiisa bannaanka ee taallo gudoomiye Aadan Madoobena halis uu ku wajahan yahay haddii uu tago magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka ah ee Koonfur Galbeed. Lafta Gareen ayaa sidoo kale ku amray ciidamada ammaanka ee maamulkiisa in xabsiga la dhigo siyaasiyiin mucaarad ah oo ku sugnaa Baydhabo, waxaana hadda la soo sheegayaa in xabsiyada Baydhabo ay buux dhaafiyeen ilaa 10 siyaasi kuwaas oo mucaaradsan Lafta Gareen oo saacadihii ugu dambeeyay gebi ahaan la xirxiray. Lafta Gareen wuxuu muuqdaa markan in si weyn uga gaashaamanayo dagaalka dhanka villa Soomaaliya uga imaanaya iyo in uu iska hor wareejinayo dana gaar ah kale Koonfur Galbeed oo villa Soomaaliya dhabarka ay ka riixayso. Gudoomiye Aadan Madoobe ayaa u muuqdaa in uu markan horinayo dagaal iyo sidoo kale colaad ka qaraxda Koonfur Galbeed oo hadda ah maamul nabadiisa haysta isla markaana madaxdiisu u dhan yihiin. Aadan Madoobe oo deegaan ahaan ka soo jeeda Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa iclaamiyay shir guud oo looga adeegsanayo xiisada siyaasadeed ka taagan maamulkaasi, taas oo ka dhalatay muddo kororsiga uu sameeyay hogaamiyaha Koonfur Galbeed Lafta Gareen. Afhayeenka baarlamaanka ayaa shaaciyay dhawaan inuu wadashi la sameeyay madaxda sare ee dowladda iyo madaxweynaha Koonfur Galbeed isla markaana uu qabanayo shir dib u heshiisiin ah oo xal looga gaarayo khilaafka ka dhashay doorashada guud ee maamulkaasi. Wuxuu yiri waxaan go'aansaday in shir dib u heshiisiin dhab ah loo qabto reer Koonfur Galbeed. Waad ogtihiin muddo xasaasi ah ayaa lagu jiraa, dalku wuxuu galay dagaal dib u xoreyn ah, markaas daraadeed dad aan mideysnayn guul ma gaari karaan ayuu yiri gudoomiye Aadan Madoobe. Sidoo kale wuxuu u baaqay dhinacyada isku haya Koonfur Galbeed iyo bulshada rayidka inay ka soo qayb galaan shirkaas oo looga adeegsanayo masiirka maamulka. Inkastoo Madoobe uusan cadeynin halka shirka lagu qabanayo, haddana wuxuu ka xariiqay in dib u soo sheegi doono goorta la qabanayo shirweynahaasi sidoo kale halka lagu qaban doono intaba. balse madaxweyne Lafta Gareen ayaa arintaas si weyn ugu hor yimid
isagoo si cad u sheegay inaysan jirin wax shir ah oo baydhabo lagu qabanayo iyo xitaa deegaanada kale ee koonfur galbeed haddii siyaasiyiinta mucaaradka ku ah yimaadaan baydhabana ugu hanjabay in jeelka uu dhigi doono. xaaladda ayaa hadda isbedelaysaa. lafta gareen dirba waa uu isdiyaariyey, wuxuuna diyaar u yahay dagaal walba uu la geliyo villada si maamulkaas kursigiisa uu gacanta ugu sii haysto. xilli muqdisho ka soconayo abaabul xoogan iyo kacdoon weyn oo laga soo horjeedo hogaamiyaha koonfur galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen. koonfur galbeed waxay wajahaysaa xiisad siyaasadeed oo aad u cakiran taasoo u dhaxaysa madaxtooyada iyo siyaasiyiinta mucaaradka ee fadhigoodu yahay muqdisho, waxayna xiisadu kasii dartay muddo kororsigii sanadka ahaa ee lafta gareen loo sameeyey iyo in la gaaray xilligii gabagabada saxda ahaa ee lafta gareen muddo kororsigiisna laga soo horjeedo. tani oo abuurtay xasarad iyo khilaaf hor leh oo hadda ka taagan deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya. siyaasiyiinta maamul ahaan kasoo jeeda koonfur galbeed ayaa hadda wada olole ay ku doonayaan in doorasho uu ku qabto madaxweynaha maamulkaasi maadaama la gaaray xilligii gabagabada oo muddaxileedkiisa rasmiga ay ka harsan tahay 4 sano ee la doortay bisha December ee soo aadan, balse lafta gareen uu sameysay muddo kororsi 1 sano ah xilligii nidaamka farmaajo uu dalkan gacanta ku wada hayay. mucaaradkii shalay gabaadka ahaa ayaa maanta taageero weyn ka helaya villa Soomaaliya, taas oo ku dhiirigelinaysa in ay sii wadaan abaabulka arbushaada iyo qalaasaha ka dhanka ah reer koonfur galbeed Soomaaliya oo hadda dhibaatooyin kala duwan wajahaya. xiisada maamulka koonfur galbeed iyo dowladda dhexe ee federaalka ayaa hadda meel xun gaartay, waxayna u muuqataa in Aadan Madoobe hadda iyo wixii ka dambeysay fijigaan dheeriya uu geli doono oo uu si weyn isaga ilaalin doono xubno dan gaara kale maamulkiisa, waxayna tani soo dejinaysaa in dowladda dhexe ee federaalka ay markan toos u bilaabayso dagaalka dowlad goboleedyada si daaqada looga saaro gebi ahaan xubnaha nidaamkii nabadda la soo jaanqaaday ee lafta gareen ugu horeeyo. xaalku wuu sii adkaanaya. xasan sheekh maxamuudna wuxuu markan bilaabayaa ama uu qaadayaa tallaabooyin qardajeex ah oo saameyn weyn ku yeelan karta wada shaqaynta dowladda dhexe ee federaalka iyo dowlad goboleedyada. koonfur galbeed Soomaaliya oo dhacda meel istiraatiiji ah oo 3 gobol oo isu tagaya ayaa hadda u muuqda inay wajahayaan loolan culus oo uga imaanaya dhanka federaalka. khilaafka federaalka maamulkaasna wuxuu u muuqdaa in hadda uu gaarayo meeshii ugu xumeysay. ugu dambeyn madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa si weyn uga yaabay awoodda ciidan ee lafta gareen uu soo bandhigay xilli bandhig ciidan lafta gareen ugu sameeyay magaalada Baydhabo. tani oo ku muujinaysa inuu diyaarsan yahay qatar walba oo dhanka federaalka uga imaata. lafta gareen ayaa diyaarsaday ciidan beeshiisa u badan kuwaas oo rabo in kursiga ay ku sii hayaan, waxaana ciidankan hubeysay Itoobiya isla markaana isla iyada ayaa tababartay, wuxuuna hadda u muuqdaa lafta gareen inuu garab ka helayo dowladda Itoobiya oo kursiga koonfur galbeed ku sii haynaysa maadaama Addis Ababa iyo Muqdisho uusan ka dhaxayn xiriir fiican oo la mid ah kii farmaajo iyo Abiy ka dhaxeeyay. guud ahaan saaxiibada aynu jecelnahay waa naga inta wararkii ugu dambeeyay xaaladda koonfur galbeed oo qasan. wixii warar ku soo kordha la soco wararkeena barnaamijyadeena dambe. tan iyo kulan dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.